In ka badan 150 ruux oo ay Soomaali ku jiraan ayaa magangelyo waxay ka heleen dowladda Talyaaniga iyaga oo laga keenay dalka Liibiya oo dagaallo ay ka socdaan halkaas oo in muddo ah ay ku noolaayeen. Muhaajiriintaasi ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Soomaaliya, Eritrea, Itoobiya iyo Suudaan, waxaana dalkaasi ka soo qaaday hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Badankood dadkaasi waxaa la sheegay inay u baahan yihiin nafaqo, waxaana ku jira dadkaasi 65 carruur ah. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la sameeyo daadgurayn bini'aadanimo oo dheeri ah. Dad badan oo doonayay inay Yurub aadaan ayaa ku xayiran Liibiya, qaarkoodna waxaa lagu xiraa xarumaha dadka lagu hayo oo xaaladooda aad u liidato, waxaana xaaladda sii xumeeyay dagaalada ka socda dalka Liibiya. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan dalkaasi Liibiya, kuwaasoo doonayay inay gaaraan dalalka Yurub si ay u helaan nolol ka wanaagsan midda hadda ka jirta dalkooda.